baabuur loo yaqaano nooca xaragada oo laga soo iibiyay shirkad kamid ah shirkadaha baabuurta ee dalka Djibouti ayaa isla markaa habeenkii xalay toole lagula baxsaday dhanka iyo deegaanka Ashcado. dadweynaha deegaanka Ashcado oo nuqadka telefoonka kula xidhiidhnay ayaa iyagu noo sheegay sidii baabuurkan loo dhacay iyo sida uu baxsaday, iyagoo sheegay baabuurkani in dhanka iyo Djibouti uu ka soo galay isla markaana la doonayay in dhanka iyo Hargeysa loola baxsado. haddaba dadweynahan ayaa waxa ay kala intaasi ku dareen baabuurkan oo isagu markaasi lagu qabtay tuulada Jidhi isla markaana ay hayeen ciidamada qaranku. ayaan dadkii aan wareysanay khadka telefoonka waxay yiraahdeen waa cabdisamade gaadhigan laftuube la sheegay waa sidii adiga waxay gooyeenoo yidiro oo iska baroolka iska baroolka hay marka aniga ma la qabtay iminka jidho la qabtay ay hore way ma kastan kama kaash cadu ka baxsaday ugu dhigay laga kaxayda suuqa Ashcado baroolka chaadonto. si kastaba ha ahaatee baabuurtan lagula baxsanayo magaalooyinka ayaa iyagu aan ku cusbayn gobolka Salal, iyadoona ciidamada qaranka ee deegaankaasi Jidhi ay gacanta ku dhigeen baabuurkaasi iyo ninkii la baxsaday. wararku waxay intaasi ku darayaan in baabuurkani uu ahaa baabuur cusub isla markaana ah noocan jadiidka, isagoona markaas baabuurkani la doonayay in lagula baxsado dhanka iyo Hargeysa. hase ahaatee waxaana khadka telefoonka noogu suurtagelin inaanu la xidhiidhno wadihii baabuurkan iska lahaa iyo sida uu Abdulsamaan Maxamed Cabdillaahi Shinil News Saylac.